maxamuud xaashi cabdi wasiirkii hore ee wasaaradda madaxtooyada oo halkan warbaahinta kula hadlay waxa uu sheegay in aanu ka qayb galaynin shirweynaha xisbiga haya talada Soomaaliland ee kulmiye oo hore u shaaciyay in uu doonayo jagada gudoomiyaha waxaana uu eedeymo kala duwan u jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi khudbadda uu jeediyay maxamuud xaashi cabdi oo dhameystiran ayaa waxay tahay sida tan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بمهد له كدب waxaan jecelahay in halka idinka mahad celiyo bahdan warbaahinta saaka ana isugu kin yeeray ujeedada ugu weyn waxay ahayd in aan ka falceliyo ama cabiro aragtidayda ku saabsan shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye baryahan bal hadalhay sidaan hore warbaahinta ugu sheegay waxaan musharax u ahaa jagada gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxaan u cadeynayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye shacbi weynaha Soomaaliland inaanan ka tanaasulin hankaygii waxaan leeyahay madda afurin damacaygiina waa halkiisii shirweynaha la qabanqaabinayo ee afraad ee xisbiga kulmiye ee madaxweyne muuse u magacaabay guddi qabanqaabo isagoon cidna kala talagelin wax waraaqah oo aanu gudbistay ma jirto oo ku saabsan musharaxnimadayda sababta ugu weyn waxa weeye shirkaas waxaan u arkaa inuu yahay mid u afduuban madaxweyne Muuse Bixi Cabdi uma arko madal xor ah oo loogu talagalay in lagu tartamo ama si siman loogu loolami karo hase yeeshee waa meel iyo munaasabad lagu dooranayo nin dooran markaa ninka la dooranayo waa madaxweynihii waa gudoomiyihii xisbiga isagaa shirka jeer garaynaya isagaa ergada soo xulaya isagaa guddiga qabanqaabada magacaabaya dowladdiisa iyo wasiiradiisa iyo xadaafiiraheediiba imanaya markaa sawirka uu leeyahay waa ka ay runtahay markuu kaa yahay waxaan go'aansaday inaanan ka qayb gelin ka dhex loolamin kana mid noqon milxiis markhaati iyo kuwa ka mashxaradaya mid madaxweyne Muuse Bixi Cabdi wuxuu cagta u saaray xisbiga kulmiye dhaba cagaag leh oo ku dhisan kelitalisnimo iyo kelitoocsi wuxuu ka duway xisbiga kulmiye tubtii uu ku soo caanamaalay ee ku dhisnayd tala wadaagga isu tanaasulka tuuraalaha iyo tawfiiqda waxa mabaadi'da tiirarka xisbiga kulmiye u ahaa waxa madaxweyne Muuse iyo maamulkiisu ku bedeleen hal ku dhigyo aan dhaafsiisnayn looma baahna hebel ha iska tago sidaan u galay ma arkayseen muxuu ahaa iyo loo joojin maayo iyo wixii la mid ah madaxweyne Muuse wuxuu ka tallaabsaday si badheedhana si cadna uu buriyay xeerkii xisbiga xeerkii iyo habdhaqankii xisbiga kulmiye ee ku saabsanaa madaxweyne la doortay inuu baneeyo jagada gudoomiyaha xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye
waa xisbiga keliya ee yeeshay laba guddoomiye iyo laba madaxweyne madaxweyne axmed siilaanyo markii uu noqday madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan 2010kii wuxuu baneeyey jagadii guddoomiyaha xisbiga kulmiye arrin uu iska jeclaaday madaxweyne siilaanyo oo keligii ku maamuusay muuse ma ahayn arrin muuse biixi xoog iyo xeelad axmed siilaanyo kaga qaaday xisbigana ma ahayn waxay isfaham iyo xeer reer kulmiye ay gaadheen ayay ahayd xeerkii nooca ahaa madaxweyne muuse maanta wuxuu xisbiga gacanta ku hayaa isagoo madaxweynaha 3 sannadood oo ay ka dhiman tahay wax yari muddadaa intaa leegna baadi buu ku ahaa madaxweynaha soomaalidu waxay tahay ammaano kugu raagtay iyo daadaad moodaa markii uu 3 madaxa la galayna hanti uu leeyahay buu qaatay marka xeerkii iyo habdhaqankii kulmiye u jidaysnaa sidaasuu u buriyey waxaa jiray nin la odhan jiray wiilwaal oo oday u ahaa beesha bartire ninkaasi wuxuu caan ku ahaa danaysi iyo damac iyo ficiltan iyo feejignaan meelo badan bay madaxweynaheenna iska shabihi jireen dhaqan ahaan dabadeedna nimankii bartire ayaa shiray waxa la waryaaraheen miyaynu maalin walba dee u dul qaadan karraa ninku waa nin inala siman waa se inoo oday inuu laba cad keligii isku qaato la geeyo sararta inuu keligii maalin walba qaato wiilwaal miyaynu dee ka yeelaa maya baa la yidhi dee bi waaya rag u qaybino 3 nin baa loo qaybiyo waxay 3dii ragga ugu sitay way qaybsadeen hadalkii oo waxay yidhaahdeen ku hore wuxuu odhanayaa wiilwaal buu ku yidhi kii labaadna wuxuu yidhi labada cad kii saddexaad ee ay ahayd inuu ilaahay iskuma heshid buu hootadii qaata nin feejigana markuu saa u qaatay buu yidhi mid kale ku darso cad kale de waa baridii mid kalena ku darso waxaan leeyahay hadday madaxweynaha ragga qaarkii ku yidhaahdeen labada cad isku hayso muusow waxaan ku leeyahay labada cad iskuma heshid xisbigu waa kii xilkuna waa kii xeerkuna waa kii shalay adiga ku xaq siiyey wuxuu yidhi saayid qamaan waxaan masow aabbaha iyo magan ka soo gaadhay rag waxaan ku maamuli aqaanama ku maamuusi maso inaanu nahay oo tollimon meerto noo tahay xisbiga kulmiye wuxuu soo maray loolana adag oo dhexdiisa ah muddadii uu gaar ahaan dowladnimada qabtay 7 sano sababaha ugu waaweyn ee uu kaga badbaaday duruufihii iyo damacyadii ragga qoodhii badnayd ee iyo qoorweyntii ku loolamaysay waxaa saldhig u ahaa wuxuu lahaa mustambeed iyo marjac adag oo ahaa madaxweynihii qaranka axmed siilaanyo oo aan ahayn guddoomiyaha xisbiga meesha lagu tartamayna waxay ahayd guddoomiyaha xisbiga iyo musharaxa axmed siilaanyo xigaya wuxuu kulmiye kaga badbaaday ninka wax doonaya ee siidhiga haya ee haddana ordaya ayaan dee gacanta hal nin ugumay wada jirin waxaas axmed siilaanyo wuxuu ahaa madaxweynihii qaranka raggiisiina isagaa isu celcelinayay ama mid ha tanaasuliyo ama mid ha la faqo ama mid ha ka maslaxo mid ama haba tartameen sidaasuu kulmiye ku soo badbaaday waxaa intaa dheer xukuumaddii kulmiye way guulaysatay waxqabad badan bay xaqiijisay waxaa sabab u ahaa waxay u gacan baxday howlihii qaranka ayay u gacan baxday xisbigiina hoggaan gaara
iyo hal door gaaraa joogay oo u gacan baxsanaa maamulkiisa laba gamcood baanu ku kala wadnay wax oo isqooranaya oo iscaawinaya oo istaageeraya maanta waxaa muuqata in hal gacan wixiiba isugu tageen madaxweyne muuse iyo xukuumaddiisuna ay wixiiba iyagu ay horumarkii qaranka iyo hawlihii adkaa ee hafinayay ay kaga mashquuleen xulid ergooyin xisbi hebel loo jawaabo hebel layaa waxaa laga saa wixii oo dhammi sidaasay noqdeen waxaan ka maqlaa mararka qaarkood iyagoo leh kala saaridda iskumahayntaa laynoo qaati waa rag aan xeerarkii iyo habdhaqankii xisbiga isha ka lalinaya waa rag waaqaca dafiraya weeye raggaasi sidoo kale madaxweyne muuse wuxuu sabadheera uga baxay ballamihii iyo heshiisyadii siyaasadeed ee uu la galay waayeelka iyo waxgaradka taageerayaasha xisbiga kulmiye doorashadiisii ka hor meel fagaara ilyartu isqabatay uu ku ballan qaaday inuu hadduu jagada madaxweynaha ku guulaysto uu wareejin doono kursiga taana waa ka baxay haddii uu madaxweyne muuse u yaqaano xariifnimo iyo xiniyo caddaan been la sheego iyo ballamaha siyaasadeed oo laga baxo waxaan leeyahay hogaamiyaasha wanaagsani waxay u yaqaanaan habdhaqankaas dhegxumo weyn iyo dhimasho siyaasadeed wuxuu yidhi ninkii lo odhan jiray winston churchill ra-iisul wasaarihii ingiriiska dagaalkii labaad ayaa halkudhig buu leeyahay caana in war you can be killed once but in politics you can many times dagaalka mar baa lagu dhintaa buu yidhi siyaasadda si marar badan baa lagu dhintaa waxaa intaa dheer dad muslima baynu nahay oo ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyey ilaahay subxaana wa tacaala markuu la hadlayo dadka ilaahay rumeeyeyna waxa uu suurat lmaa'ida ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud kuwii iimaanka laga helaye ilaahay rumeeyeyow ballamaha oofiya waa gashaan ballamaha iyo cahdiyada siyaasaddu waa ka adag yihiin ballan laba qof gashay waxaanan ka hadlayaa ma aha muuse biixi madaxweyne muuse iyo maxamuud xaashoo ballan galay oo aniga wax lay ballan qaaday maaha waa wax ka weyn waa habdhaqan iyo ballan iyo cahdi iyo heshiis siyaasadeed wax aniga gaar meel ii yaalla ama aan ku doodayo le anaa gaar ii ahaa ma jiro raggan ka mid ahaa qoodha iyo qowrweynta kulmiye loola mid doontu baan ka mid ahaa waxaanse ka hadlayaa si guud baanu hadlayaa rasuulku calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimuuna calaa shuruudihim dadka muslimiinta ahi waxa u xeeray waxay ku heshiiyaan waxaan leeyahay halaad nin ku baratay ma xuma soomaalidu waxay ku mahmahdaa ninku siray kuma dilin balse waa kuu digi madaxweyne muuse hadduu ballamaha iyo cahdiyada siyaasadda sidaa fudud uga siibto waxaa isweydiin leh siduu u aaminsan yahay in mar labaad loo rumaysan karo waxaase yaab leh hoggaamiye aan qowl iyo qorshe cad lahayn waa arrin weyn oo isweydiin leh tawsta iyo tabaalaha xisbiga kulmiye ku habsaday kuma eka intaa qura ee madaxweyne muuse iyo maamulkiisu waxay qaybiyeen xisbigii kulmiye ee tin iyo cidhib midnimadiisu sababtay inuu kursigii dalka u sarreeyuu maanta fadhiyo saalo loo saaro
xisbiga kulmiye wuxuu ahaa xisbi ballaaran deegaano badan taageero ku leh xulufooyin badan ka kooban xirfad iyo xikmad badan gashay isku hayntooda aan iska iman iska soo lugoyn meel kale qabtaan waayin laakiin laga shaqeeyey oo lagu tabcay mana aha madaxweyne muuse ka keliya ku tabcay waa looga tacab badnaa rag fara badan baa uga tacab badnaa xisbiga raggii noocaa dadkii noocaa ahaa madaxweyne muuse iyo maamulkiisu markii ay xilka qabteenba way qaybiyeen waxay ka dhigeen wax la yaab kulmiyihii hore iyo kulmiyaha dambe waxaan manayaa ereyada inaa maqasheen aan dhigiina ku cusbayn raggaa soo saarayay qaar baan kulmiye habeen u ololayn ee muuse la shaqeeya maanta gacanyarayaasha u ah qaar baan habeen u soo dib jirin qaar soo shaqeeyana waa jiraan waxay bixiyeen kulmiyaha cusub iyo ka hore dadkii soo halgamay ee aan xilalka iyo xukuumaddaa ka qayb gelin waxaa loo bixiyey kulmiyihii hore ool faashinka ahaa iyadoo laga faanayo dadkii nooca ahaa madaxweyne muuse farshaxan kuma aha isagu faalinta dadkiisa iyo ixtiraamka fikradaha ka dhanka ah balse wuxuu farshaxan ku yahay ficiltanka iyo kala fogeynta dadkiisa waxaa halkudhiga baa jira la yidhaahdo two things define you laba ayaa ku sheega oo kaa markhaati kaca your patience when you have nothing dulqaadkaagu wuxuu markhaati ka noqdaa markaanad waxba hayn your attitude when you have everything dabeecadahaaga iyo dareemadaaduna waxay ka markhaati kacaan markaad wax hayso markuu ninku hogaamiyaa yahay habdhaqankiisu dee wuxuu muujinayaa markaa dadnimadiisa ayuu muujinaya madaxweyne muuse wuxuu si qaawan ula dagaalamay dowladdii dhistay ee uu garwadeenka ka ahaa saaxiibkii axmed maxamed maxamuud siilaanyo ee aan aniguna ka midka ahay waxaa hubaal ah kulmiye waxaa lagu doortay barnaamij siyaasi ah waxqabadkiisii hore ee xukuumaddiisaas baa u shafeeco qaaday waxaa kaloo lagu doortay barnaamij cusub oo labaad oo muddaxileedka labaadana kulmiye dadka ayuu ka yibiyey haddii dowladdii kulmiye ahayd dowlad unpopulara oon sumcad lahayn oo ummaddu ka kalsooni qaadatay oo nacday lama doorteen kulmiyihii muuse biixi madaxda u ahaa xaqiiqdu waa sidaas waayo labada xisbiye mucaaradka waxaanu kaga duwanayn annaga waxaa nalaga xisaabinayey maxaa qaba kulmiye muxuu qabtay 7 sano iyo muxuu qaban doonaa iyagana waxaa laga xisaabinayey oo dadku dhagahooda u riyaaridayeen muxuu qaban doonaa waddan iyo wixii xisaabta adag ee ah maxaa kulmiye soo qabtay iyaga lama weydiinay oo ahayd taa codbixiyaashu ku go'aan qaadanayeen labada hogaamiye ha kala duwanaadeen hase yeeshee xisbigu waa xisbigii uun mabaadidiisuna waa isku mid markii doorashada aanu ka baxnay waxaa madaxweyne muuse iyo maamulkiisu u dhaqmeen noola dhaqmeen waxaanu ku wareejinay dowl iyo dal midaysan iyo dowlad habaysan oo xil wareejin shay waliba qoran yahay oo wasaaradihii shaqaynayaan oo dakhligii socdo oo shaqaale hal bil mushahara aan amaaha ku maqnayn raashinka ciidamada amaahna lagaga lahayn wax waliba sidoodii yihiin qalin iyo warqad waliba isdul saaran yihiin ayaanu madaxweynaha ku wareejin isku dowladna waa isku xisbina waa nahay waxaa bilaabantay muddo dheer oo 2 sano ah halkii ay wax ka qaban lahaayeen iyo himiladii naloo doortay
waxay ku mashquuleen caydii iyo xantii iyo xasaradii iyo ximintii xukuumaddayadii hore mar qura hadalna lagama maqal ma ahayn macnaheedu inaanu baqaynay macnaheedu ma ahayn inaanu bilaa damiir nahay laakiin waxaanu sabir iyo dulqaad iyo waayeelnimo waan ka waaya aragsanayn iyaga waayo dowlad baanu soo maray dhibta dowladnimadu leedahay baanu garanaynay iyagoo dee rag layl cusuba bay ahaayeen marka runtii raggaas xukuumaddaa ku jiray hablo iyo ragba waxaan ka markhaati kacayaa inay dhexda marada ku xidheen guure iyo gabal carowba ay u shaqeeyeen xisbiga kulmiye isugu guulaysan lahaa la-aantoodna waxaa runa qoori fagaaray ka warsheekotaaye inaanay muxuu ahaa xisbiga kulmiye aanu madaxnimo ku guulaysteen hogaamiyaha aanu wadnay iyo haldoorka ku xeerani 10 saac bay seexan jireen raggaa iyo hablaha xisbiga xukuumadda Siilaanyo ka midka ahaana labada habeenimo ay seexan jireen shantana way soo shaqatay jireen salaada subax markay tukadaan waxay muujinaysaa walwalka iyo walbahaarka iyo mas'uuliyadda iyo culayska nasaaraa cidda culaysku saaraa iyo assignmentka adag annaka yahay waanu ka walwal badnayn musharax iyo raggii la joogay raggii caanka ahaa iyo hablaha yagii waxaana lagu abaalguday xan iyo ximin iyo xasarad dalkii bay boobeen waxbay dhaceen waxbay qaseen war haddii wax la qasay ama haddii laynala xisaabtamo laynoo fiirsado waxa soo bixi doontaa waxaynu ku loolanay wixii qaranka una inay ahayd in lagu adeeyo taasuu baa soo baxaysa madaxweyne muuse markuu musharaxa wuxuu odhan jiray road modelkaygu waa axmed siilaanyo maalintuu kursiga ku fadhiistayna isagii raggiisii wejigaasa yeesheen wax kale ka odhan maayo anoo tiimkayguu hadlaya hadda anigu iska hadli maayo anoo ka hadlaya xukuumaddii aan ka midka ahaa dhammaanteed waxaan leeyahay tacabaydhe maantaba hadduu timiri caayayo tolla-aan dheh raggii aan tiirka qabadsiiyey ya taana intaa baan ka leeyahay raggii aanu dhisnay hogaamiyahaanu dhisnay iyo raggii dhismihiisii wax ku noqday waxaa nooga xan iyo xasarad wanaagsanaa iyo nooga xan iyo xasarad yaraa kuwii aanu u arkayay inaanu dowladnimadii ku muquunin aanu gacanta ku hayn yaa nooga dareen iyo niyad wanaagsanaaday oo nooga xan iyo xasarad yaraaday waxba yaanu xeerkay marin xoolanaysiina xaasheen in liban kaa xistiyey xumihii waya gabaygaa salaan carabe baa leh kii horena waxaa leh cali jaamac habiil colaadinta iyo ciilqabku kuma ekaan intayadii xukuumaddii ka mid ahayde waxaa la colaadiyey madaxweyne muuse iyo maamulkiisu waxay la dagaalameen taageerayaal badan oo xisbiga kulmiye ka mid ah oon xil xukuumaddaa hore ka hayn deegaano badan oo laga soo doortay oo siiyey cod duufaan leh ganacsato ku dhiig baxay ayaa lala dagaalamay oo maanta wada calacalaya beenaale markhaatigiisu fogeeyaa la wadoogi waxaa arrimahaasi ay ka dhabeeyeen hadalkii madaxweyne muuse biixi uu ka yidhi madasha haldoorkii doortay ee guusha soo hooyey isagoo aan 40 bixin lana gardaadin guushiisii halkuuga mahad celin lahaa ku yidhi fartiina ayaa dhexda ka qaniini doontaa taas uunbaa caddaatay ma aha waxaan ka hadlayaa dareen maxamuud xaashi ah waa dareen reer kulmiya xogagaal baanu ahay suuqaan maraa hadduu madaxweyne muuse meel kaga xidhan yahay oo uu yahay maxbuus maamuus leh madaxweynuhu waa maxbuus maamuus leh maaha muuse oo qudho madaxweyne oo dhanba anigu galab iyo habeen waxaan la fadhiistaa kuwii wax doortay waan dhegaystaa deegaanadaan marar tagaa
marar badan baan khajira oo aan waxaan ku jawaabay waaya xaqiiqdu waa sidaa ninkii qumane qoorta loo suray waa isaga iyo yeelkii ee qiimeyn kari waaya halkaa waxaa ka muuqata madaxweyne muuse iyo maamulkiisu inay ku guul daraysteen xisbigii doortayna inay isku hayaan isla markaana ay ku guul daraysteen doorashadii markay dhammaatay haarihii iyo boogihii iyo qaybsankii ummadda somalilan ku yimi waxaa waajib ku ah inay daweeyaan oo ururiyaan oo xantadkii doorashada biyaan lagama sugayn cabdiraxmaan ciro iyo faysal waxaa laga sugayay madaxweyne muuse qarankii qaybsamay maanta oo 3 sano doorashadii kale lagu soo dhowdahay sidii buu qaybsan yahay waxaanay ahayd in la isu soo jeedo xilkana cidda guulaysataa bale xisb xabaadhiisii baa qaybsan maanta xisbiga kulmiye marka ninka xisbigiisa hogaamin kari waayey isku hayn kari waayey qaranna isuma keeni karo taasuun baa caddaatay intaa markaan ku soo ururiyo waxaan jecelahay inaan dhowr eray oo kale xuso maalin dhaweyto waxaa is-sharaxay maxamed ibraahim ninka la yidhaha qabyo tire waxba kaga fogaan maayo ma rabo inaan hadal badan ka galo waayo shirka qiimayntiisaan muujiyay anugu saasaan u arkay isna wuu soo taabtay waxa aan sheegayuu soo taabtay oo caddeeyo markhaata u dhacay waxaan maqlayay rag leh wuu iska ciyaarayay qabo musharax rasmiya ma ahay waxaan leeyahay raggu si kasta ha isu hayo ha isu xoqo laakiin inuu aada isugu talax tago ma aha ya قولوا ولو اعدلوا ولو على انفسكم بلايد عدالة سماية حتى إذنك هذا قف السقبتان مركا ويسكع nin weynoo siyaasiya oo hanle oo shalay kuwii soo halgamaya taariikh weyn kule qaranka iyo xisbiga kulmiyaba in xaajadiisa lagu soo ururiyo uu iska ciyaaray ninka lacagtiisa tay ee jaaga keenay ee waraaqihiisii watay arintaas waxa weeyaan meel ka dhac ameelka dhac weeyaan waana arrimahan la isu turayn waana waxay ka muuqataa waa hogaamin xumo taa intaasan ka odhanaya waxa kale oo iyadana aan arkaya kuraastii kale oo aan cidna lagula tartamin madaxweyne ku-xigeenkii oo lala tartamayo ninka la tartamaya shalay guddiga qabanqaabadu axmed muumin seedna waxay ku reebeen 5 sano inaanu buuxin wasiirka ganacsiga saajina waxa yiraahdeen uu buuxiyay deewa way iska qaawantay waxaynu ka hadlaynay waxaynu ka hadlaynay markhaatibu u yahay dhacdadaas arrimahan ka hadlayay iyana sida taa qabo wasiirka ganacsiga xishmad buu iga mudan yahay ku xadgudbi maayo ixtiraam buu iga mudan yahay waa nin weyn oo qiimo leh laakiin waxaan ka hadlayaa xogaal waxaan ahay waaqiimu shahaadata lilaahi markhaatiga ilaahay dartii fura baa la yidhi intaan ogahay baan furayaa sirru daarina waana kama waqti foga wasiirka ganacsigu saaje ina muumiseed markaan soo koobo waddanka imaaraadka carabta ayaanu tagnay annagoo wafdi ah madaxweynuhuna waa nagu jiray muuse biix isagoo markaa guddoomiye musharaxna ah waxaanu u tagnay saleebaan axmed guuleed guddoomiyaha jaamacadda camuud oo baanu ugu tagnay qalliin ka baxay hudheel niman reer bowrabaa baanu wada qadaynay uu ku jiro saajin halkaasaanu ka soo hanuuninay oo ka soo kulmiyey maalintaa aniyo muuse biix oo isagoo benshan galay weliba aanu ku nidhi war haddaad tan wax ka doonaysana kaalay ta dambe haddaad wax ka doonaysa kaalay noo nala shaqee oo maanta reer boorame iyo meeshaa qalcaddaa jibriil yoonis nala jabi ee kulmiye ka maqan yahay saasay waa sanadkii ugu dambeeyey sidiibuu ku soo dhoofay ku yimi ballankii fuliyey kulmiye la shaqeeyey marka
dee taasina waxaas waxay wada muujinayaan wax uun dee la iska cantatabanayo muxuu ahaa wax walbana waa la isogyahay dee cidina isma qaldi karto cidina isma qaldi karto ma garanayo madaxweyne ku-xigeenkana dee kursigiisa ila meeshu waxa iska ahayd madal iska aroosahe waxa wixii kiisa loo taarget gareeyeyna ku-xigeen hadduu doonayo ragga kalena dee ku-xigeenka uuba bannayn doonaa way isaga bannaanaan doontaa wuxuu ka laalaadaa un waa hoggaanka weliba meesha afraad uu ka joogo waxaanun isiri war isna talow boqoladiinii lala dagaalamayo dowladdii hore ila isna taasuu ku jiraye sayid cilama halkaasaa lagu maagay baan isiri waxaan ku ururinayaa aan leeyahay taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaan leeyahay fariintaan halkan uga gudbinaya waxa weeye haniyad jabina waxaynu gelaynaa dagaal adag oo aynu dib ugu soo celinayno xisbigeenii tubtii saxda ahayd aynu ugu soo celinayno waxaan ku soo ururinayaa madaxweyne muuse waxaan leeyahay ismaroorinta iyo ismacaashiinta ka muuqata ismaroorinta iyo ismacaashiinta kaa muuqata ma noqon doonto midaad mahadiso mustaqbalka balse aynu dhowro halka uu ku dhammaado awrkaa buubaalkeed hoggaankiisa haysa aad iyo aad ba u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu